lama filaan anagoo og ayay wax waliba ku dhaceen haddana waxa ay ahayd qaraxii siyaasadeed ee ugu saameynta badnaa oo uu xilli kala guura sameeyo madaxweyne maalmo xukunka uga dhiman tahay oo leh mucaarad xoogan farmaajo ayaa shaxda ciyaarta ku qamaaray xidigii xukuumaddiisana 86 daqiiqo ciyaarta bedel ku sameeyay xasan cali qeere 3 sano iyo 6 bilood wasiirkii koowaad ee xukuumadda ahaana saaxiibka ugu dhaweey siyaasadda madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya miraayada laga daawado filla Soomaaliya siyaasadeeda iyo go'aan gaaristeedana ayuu ahaa balse maxaa isbedelay anigoo og in wixii maanta golaha shacabka ka dhacay ay ahaayeen sharci darro aan loo marin habraaci saxda ahaa ee xilka qaadis xukuumadeed 9 July shirkii golaha wasiirada oo qeyro kaga dhawaaqaynaysan jirin muddo kororsi taasi filla Soomaaliya ayay carab ku beertay dhanka kale waxay wadada u xaartay shirkii dhuusamareeb ee madaxweynayaasha maamul goboleedyada ay ka qayb galeen iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeere ugu dambeyntiina heshiis ayaa laga gaaray 15 Agoosto ayaa dib loogu balamay ka tagista xafiiska Qeere waxay ahayd dhammaan qalqal siyaasadeed oo dalku galay 15 Agoosto shirkii loo balamay magaalada dhuusamareeb ayuu dibadhac ku imaan doona iyadoo kala aragti duwanaanta madaxweynaha iyo madaxweynayaasha maamul goboleed ee dib u bilaamin doonto doorashada in laga heshiina caqabado badan ayaa ku imaan doona taasina waxay macquul ka dhigaysaa muddo kordhin loo sameeyay hay'adaha dastuuriga si loo gaaro doorasho heshiis lagu wada yahay sheeko walibana waxaa bedeli kara ra'iisul wasaaraha cusub ee jamhuuriyadda Soomaaliya dadka qaarkii ayaana qabaxanta ah in gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan iyo gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka Cabdiwali Sheekh Ibraahim Muudey in ay kulan la yeesheen madaxweynayaashii hore ee qaranka Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud in ay u horseedi karto in farmaajo uu xusho ruux u dhow xagga mucaaradka si uu culaysku uga dago waxa ka imaan kara beelaha xiraab ila ku dhow xafiiska madaxweynaha ee dadka falanqeeya siyaasadda ayaa qaba fikir ahaan inuu shaqada si ku sima oo ku sii wado ra'iisul wasaare ku-xigeenka koowaad ee xukuumadda Abukaata Mahdi Guuleed maadaama uu yahay qabiir xagga sharciga iyo doorashooyinka si madaxweynaha ugu fududaato hanaanka doorasho dalku u galayo iyadoo la kaashanayo baarlamaanka labadiisa aqal ra'iisul wasaaraha cusub waxaa hor yaalla caqabado badan oo ugu weyn tahay inuu ka shaqeeyo doorasho heshiis lagu yahay iyo in mucaarad iyo maxaafis siyaasad isku wadi karta oo la yimaado si doorasho 2020 dalku u galo xaaladda kala guurkana si fudud ugu gudbo Soomaaliya inay ka badbaado mar kale dib u dhac ku yimaada dagaal sokeeye maadaama qaranku uu marayo waqti adag tan iyo burburkii kadib warbixintan qalinka waxa uu qaatay anigoo Maxamed Sheekh Cumar Milano waxaana si wada jir ugu la soo jeedinayay walaashay Luul Shahada Ali Shaalu tani is arag dambo iyo ismaqal dambo Soomaaliya nabad معنا داد كود حقدو